بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، نعوذ بالله من حال أهل النار. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. baabkii xalay ugu dambeeyey iyo baabkan iyo abwaab kaloo soo socotaba wuxuu sheekhu kaga warramayaa wax la yidhaahdo shirkul alfaad, shirkiga xagga ereyada ka dhaca. yaabanad u jeedin adugu xaqiiqada ereygu hadduu shirki ixtimaalayo waa la nahiyey. ereygaa in laga leexdo oo laga joogsado ayaa waajiba. sidaa awgeed sheekhu wuxuu ka dhigtay ciwaan aayaddan: falaa tajcaluu lilaahi andaada wa antum taclamuun. aayaddani waa aayadda 22aad ee suurat lbaqara. waxaa la yidhahdaa aayaddaas waxay tilmaantaa waajibka koowaad: yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum. waa amar, waa cibaado, waa tawxiid. aakhirkana waxay sheegtaa awalu nahyi oo maxay ah: falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun. marka awalu nahyi waa shirkiga, awalu amrina waa tawxiidka. marka diinta foolaadkeedu waa kaa: falaa tajcaluu. fa'du waa fasiixa, laaduna waa naahiya. falaa tajcaluu ha u yeelina lilaahi alla ha u yeelina andaadan u dhigmayaal. jamcu nid waa nudaraa wa amhaal wa ashbaah, cid u dhigantaa oo idinku dhinac dhigtaan, ama awoodda dhinac dhigtaan, ama xagga cibaadada dhinac dhigtaan, ama xagga sheegiddaa dhinac dhigtaan. ilaahay waxbaba ha dhinac dhigana, walxaal antum idinku taclamuuna ha ogtihiin annahu laa nidda lahu, ilaahay inaan cidina dhinac istaagi karin, oo aan lala lahayn khalqiga, oo aan lala maamulayn, oo aan cibaado gaar loola lahayn. idinkoo sidaa og ilaahay waxba ha garab dhigina. قال ابن عباس في تفسير الآية: الأنداد هو الشرك الخفي أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. عبد الله بن عباس آية دايو معني معناها علماء أما تفسير كودنا والله تفسير اللفظ إن لفظ الله فسره، هي تفسير المراد أما تفسير المعنى لبدا تفسير وين. marka tafsiiru lafdi muu marin ibnu cabbaas, oo lafdigan andaad waa jamac, mufradkuna waa maxay? waa nid. nidkuna waa annadiir, waa u dhigme, ama almathiil ama alshabiih. muu marin lafdiga, laakiin muxuu sheegay macnihii. oo macnuhu waa maxay? alandaadu huwa shirku, waa in ilaahay cid lala wadaajiyo, amaba cibaadada ama alfaadda. shirkiguna waa laba: mid jeliyo muuqda, waa keenu ilaa kitaabka bilowgiisa ka soo hadlayna. ilaahay keyrkii la baryo, la caabudo, loo gowraco, loo qayshado. ilaahay maxaa la yidhaahdaa? keyrkii la jeclaado. waxyaalaha noocaasa waa shirkun jeliyun, wuu muuqdaa. kana waa khafiyo, wuu qarsoon yihi. ka qarsoon baa isaguna laba ah: mid uurka ku qarsoon, waynu soo marnayoo waa arriyaa, waa istuska, ashirku lkhafiy baa la yidhaha. midina waa mid axkaamtiisu qarsoon tahay. kanuu sheekhu ka hadlayaa axkaamtiisaa qarsoon, dad badani kuma baraarugsanaa. in lagu baraarujiyo oo loo sheego ayaa daruuriya. waa kan ashirku akhfaa, wuxuu ka qarsooni badan yahay min dabiibi namli, quraanjo dhaqaaqeed. dabiib waa dabba yadibbu dabiiban, waa mastarkii dabba, dhaqaaq quraanjo. calaa safaatin, sallaxay ku dhaqaaqdo, sawdaa madow, fii dulmati alleyl, habeen mugdigii. tusaale khatara wey. marka horeba quraanjay ahaydoo xajmi muuqda may lahayn. waa marlabaadka sallax sibibixa ayay ku dul socotaa, oo meel laga sanqadhaba ma leh. wax lagu istaagay iyo qodax la jabiyey iyo daasad laga sanqadhiyo midna ma laha. waa ta saddexaad habeen madow bay socotaa, quraanjo habeen madow gudaysa oo sallax ku dul socotaa, oo aan iftiin iyo toosh jirin. cidi ma arki kartaa? waa maya. shirkiganna saasuu kugu soo siqayaa.
gooruu dabku soo yidhin baad arkaysaa markaa shirkigana waa la iska ilaaliyaa hadduu yahay riyaaga waa inagii soo akhrinay ducadiisana waa inagii sheegnay kanuu sheekhu ku tusaalaynayaana waa mid in la iska ilaaliyaa fudud yahay laakiin muxuu u baahan yahay in la fahmo haddaad fahanto waad iska dhowri karaysaa waa maxay wa huwa an taquula inaad tidhaahdo wallaahi wa xayaatika yaa fulaan hebelow ilaahay baan ku dhaartay noloshaadana waan ku dhaartay marka ayaad sintay ilaahay iyo qof makhluuq ah waayo wowgu wuxuu tilmaamaa taswiya iyo cadfi buu tilmaamaa simid haddaad tidhahdo imka jaa muxamedun wa fulaan maxamedna waa yimi hebelle waa yimi maxaad ku sintay imaatikaad ku sintay inay wada yimaadeen marka in ilaahay cid lala simo oo ilaahay cid lagula dhaartaa iyadaaba shirkiya amaba waxaad tidhi wa xayaatii waxaan ku dhaartay noloshayda innaga wayna soo martay xilligii jaahiliyada in ninka qoodh iyo xero lagu dhaariyo qoodhiisa iyo xeradiisa lagu dhaariyo la idhaahdo war qoodhi xeraalo mariya wallaahi bilaahi waxba lama aha laakiin mararka qaarkood waxay gaadhay in dalaaq la mariyo waxay xilayntaa iga yiin taasuu dib u joogsanayaa waayo gabadhan geel baa laga qabaa deetana kuma degdegi karo ilaahay magaciisa iska odhanaya subxaan allah marka taasoo kale sax maaha ilaahunbaa lagu dhaaranaya cid kale lagu dhaaran maayo taas waa dhaartii wataquulu waxa kalood odhan lowlaa kulaybatun lowlaa haddii aanay la jirin way jirtaaye kulaybatun ayad yar waa kalba waana la tasqiiriyey ayad yar oo haadaa taasi haddaanay joogin la ataana lusuus tuugtaa noo soo dhici layd walowla albadu waa bahasha la ydhaha aluwas waa xuurbadeedda lowla albadu haddaanay shimbirbadeedda ama xuurbadeeddu jooginna fi daari guriga la ata lusuusu waxa iman lahaa tuugta tanna waxa weeye badbaadada gurigu badbaaday haddaad ilaahay tiraa alla badbaadiyey muwaxid baa tahay muumina haddaad leedahay xayawaankanaa badbaadada lehba oo sameeyey taana shirkigii weynaabaad ku dhacdayoo diinta waad ka baxaysaa taana looma jeedo maxaa loo jeedaa ninkan wuxuu garanaya cidda wax badbaadisa waa alleh laakiin aygani uu ku ciyey halkuu odhan lahaa ilaahay baana badbaadiyey ayuu sababtii buu sheegay kii sababta keenee alla ah ee ayga ka hadliyey ee waxba isku dubariday wuu ilaabay marka dembigu waa maxay waa xagga ereyga caqiidada maaha wuxuu ogyahay in ilaahay wax badbaadiyo laakiin maxaa qaldamay kelmaddaa qaldantay maxaa la rabaa inuu idhaahdo lowla allaahu ilaahay baana badbaadiyey uma intaa kadibna kulaybatu haada kan ayadiisa ayaana badbaadisay kulaybatu haada marka saasuu idiin dabdinaya soo maha kulaybatu miyuu tanwiin samaynaya ya kulaybatu haada waa mudaaf iyo mudaaf ilayhi markaa waxay noqonaysaa kulaybatu haada qofka ninkan aygiisa yari haddaanu jirin bay noqonaysaa haddii laakiin la tanwiiniyo lowlaa kulaybatun haddaanay ay joogin haada tani oo haada ishaaradu markaa aygay noqonaysaa laakiin iminka waxay noqonaysaa ninkaasi ayadiisa yar ayaa ku qaylisay marka qaladku waxa weeye xagga ereyga kaasaa la saxaya waxaa kale lahaan jireen baasha xuurbadeedda la ydhaa inagu maba lihin dhaqanka dholol badanoo marmarayna kuma arag xuurbadeeddaasa guriga la joojinayaayo markay tuug aragtaaba iyana ciyaysa wax kala qaban maysee saa la kaakacaya la baraarugaya wa qowlurajuli qowlka uu ninku idhaa lisaaxibihi nin buu ka odhanayaa maa shaa allahu wixii alla doono washita adiguna aad doonto wa qowlurajuli nin kalena wuxuu odhanayaa lowla allaahu haddaan alla jirin wa fulaanun hebelle uuna jirin saasaa dhici la marka labadaa ereyna qaladku waxa weeye wow baa la isticmaalay maxaa tidhi maa shaa allahu washita wixii alla doono adna aad doonto wowgaa qalada ilaahay iyo qofka lala hadlaya maxaa simay waa makhluuq iyo khaaliq maxaa la rabaa tawxiidku waxa weeye in ilaahay la yidhaahdo maa shaa allahu waxdah ilaahay wuxuu doono keligii oon cidna la raacin saasaa ugu fiican haddaad ka fursan weydo maa shaa allaahu uma baa isticmaalaysa oo adawaat alcadfi wowgu wuxuu sameeyaa taswiya simid umadu laakiin maxay tilmaantaa tartiib
iyo taraakhi kala dambeey waliba fog ilaahay baa wuxuu alla doono ilaahay ka bacdina hebel doono waad oran kartaa waa caqiida saxataas marka inaga laakiin dadkeenii jahalada ahaa ilaahay baa ka horreysiyeen qeyrkii wixii ragu kaco rabbina aqbalo wuu rumooba ilaahay baa waxa laga horreysiyey rag malaa waxay islaahayeen waxaad ka xumaanayaa gabayga xumaado iyo caqiidada xumaatay kama fiican gabayga xumaado gabayga wixii rabbi aqbalo kadibna ragu kaco say doonaan iyagu ha u tartiibiyaan oo ha ugu gabiyaane saasay caqiidadu ku noqonaysaa horta waa in rabbi aqbalaa kadibna waa in raggii fulin lahaa ay u kacaan markaasuu rumoobaya kun rag hadday u kacaan oon ilaahay ugu talagelin bilaala caanayn maayaan irbadun gelin maayaan marka waa in caqiidada la saxo oo ereyada la hagaajiyo lowla allah wa fulaan baa la mida hebel ilaahay iyo hebel baa noo baxay laa maxaa isdhac dhigay ilaahay baa noo badbaadiyey iyo hebel walle ilaahay iyo dhakhtar wanaagsan walle ilaahay iyo dawada arrimaha noocaasa la iskuma sidki karaayo allah keligii baa la sheegayaa wixii ka dambeeyana bacdigii ama gadaashii baa la isticmaalayaa laa tajcal fiiha fulaanan hebel baha soo qaadin haadaa kulluhu bihi shirkun waxaa soo hadala waa hadalkii cabdillahi ibni cabbaas waxaa warinaya riwaaya ibni abi xaatim waana asar xasana weeye marka intaasoo dhan maxaa la tilmaamay ereyada in la iska hagaajiyo وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري من حلف ككدارتا بغير الله إله عدانا هين فقد كفر وكفري أو أشرك أما شرك باب كدعي رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم وأبو داود الطيالسي وأحمد هل كان وحلق هذا يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نبي قال سوق قاري سوق أبيه كدارنيا نبي يقول لا تحلفوا بآبائكم آبياشنا كل أرننا من كان حالفا فليحلف بالله كي دارنا يا الله كل أرت إلهي بتكل أرنسا مقعديس إلهي واحد كل أرنسا سفوين كيس إلهي واحد كل أرنسا أوديهيسا وتكل أرن كرتا من حلف بغير الله كي إلهي عدانا هين كل أرتي من تو الشردية واحد عموم كده يسا وح كستا وح يري وحوي وحلة شعلية وحلة نعبية هاي qofka ilaahay cid aan ahayn ku dhaartaa faqad kafara kufrigaasi kii weynaa uu noqon karaa laakiin goor buu noqonayaa haddaad tacdiimiso weynayso sida ilaahay loo weynaynayo qalbigaaga ku weyn haddaanu laakiin sida ilaahay qalbiga ugu weynayn asee uu kula weyn yahay sida cumar khadaab oo kale abiyu waa la weynaa laakiin dee ilaahay baa kala sii weynaa waa shirkul alfaadoo waa shirkigii yaraa waa dembi weyn oo kabiira ah laakiin diin kaga bax maaha diinta laga bixi maaye waa kufrun asghar iyo shirkun asghar ayuu noqonayaa وقال ابن مسعود وحول عبد الله بن مسعود لأن أحلف لام كاسوا لام الابتداء لأن أحلف إن أن كدارته بالله يا الله كدارته كاذبا أنا بين شيء أحب إلي أن كتعلها من أن أحلف إن أن كدارته بغيره الله عدان هين صادقا أنا رون شيء أثر كان هذا عبد الله بن مسعود هذا النبي ما حديثه أنا وما أصحن هو حديث ضعيف وأثر ضعيف وهي لكن معناه كور رمية ومعنى السحوي معناه كور رمية ومحي ماشي واحد اثنين عيال الله إن هذه الله كل دارته أدورون شيء جاي إن هذه الله كل دارته أدور بين شيء جاي صلى الله عليه وسلم إن هذه الله غير كي كل دارته أدورون شيء جاي إن هذه الله غير كي كل دارته أدور بين شيء جاي وافر صورة لبا موسى هذا القاضي ولا بكلا فوق هذا الله كل دارنا يا أرون شيء جاي وتوقع قيمة بدل هالكاي كذا كذا إلهي غير كي نقول دارته بينه وشيء سا وتقول لي تي هالكا صوري يدنا هاي نجاهري تي كوبات يتي أفراد حصاري لبدي يسكت حقي تي لباديو تي صدحات تلبادوا ما هاي الله نقول دارنا يا الله نقول دارنا لكن بين بشيء موضوع بين بنكشيء تصدحنا ما هاي إن اللهم صل على محمد إلهي وحن كل دارنا يا غيرك لكن رم بشيء
عبد الله بن مسعود wuxuu leeyahay ta hore fiican waayo ilaahay baad ku dhaaratay shirkigood ka badbaaday laakiin maxaa kugu qoran beentii aad ku dhaaratay ayaa kugu qoran iyo dambigeedii warkaas meedin dhacay ta kalena ilaahay qeyrkii baad ku dhaaratay oo shirkigii waa kugu qormay laakiin masalada ku waramaysa waa run oo dambigeedii kuguma qormin marka maxaa la miisaamaya beentii aan sheegay dhaartii hore beenteeda iyo shirkiga la miisaamaya kaba culus shirkiga culus sida Abdullah ibn Mas'ud leeyahay waa sida beentii aan ku dhacay yamiinul ghamuus baa la yiraahdaa yamiinul ghamuus inaad dhaar ku dhaarata beena yamiinul ghamuus baa la yiraahdaa maxaa ghamuus loo yiri taghmisuka fil ithmi waxay ku quusinaysaa dambigina muxuu ku quusinayaa naar yamiinul ghamuus baa la yiraahdaa u dheed masalana laakiin muxuu ku barayaa ilaahay qeyrkii oo lagu dhaartaa ka sii daran yamiinul ghamuuska yamiinul ghamuusku uu daray dadkeen waxa oran jireen dhiig soo hoy laakiin dhaar soo hoyn waliba dhaartu way sii darnaataaye marka maal binaadan ama dhiig aad dafiraysa dhaarato ee casarna lagu dhaariyo ee jumca uu noqdo ee masaajka lagu keeno ina afartiga dhawaadagta halis weey horay baa tigaantiga maartay aad tigtiglaha u goosanaysa marka ibn sheekh al-islam taymiya wuxuu leeyahay al-halfu billahi kadiban fihi tawhid hada ka fiirso ilahi qeyrkii lagu dhaartay waa tawhid wal halfu bi ghayri illahi sadiqan fihi ishrak wa hasanatu at-tawhid ahsanu min hasanati as-sidq hasanatu tawhidka ayaa ka sareysa hasanadii runta marka labada ku taagan tahay tawhidka qaado wa an hudayfa ibn al-yaman radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam nabiga ilaahay wuxuu la taquluha oranina ma sha Allah wa sha fulan ha oranina walakin hayashe qulu waxat tirahdaan ma sha Allah thumma sha fulan rawahu abu daud bi sanadin hasan sanadin sahih hada alkeen ka soo hadlay nabigu sii xoojiyay xadiiskani ha oranin ma sha Allah wa sha fulan wowgaasi mutlaq al-atf wa tilmaamaya iyo taswiya iska ilaali hada ma sha Allah ثم شاء فلان حكى سيفي عن ما شاء الله وحده بس عندنا بعدين عديقين وجاء وحكيم عن إبراهيم النخعي إبراهيم ابن يزيد النخعي إمام أهل الكوفة أنه يكره وحو النعي أن أعوذ بالله وبك قاعدنا قاطع أرضي سلفنا الصالح وحي صدح دي بقوله هجرية كهري كانوا يكرهون هذا المقشو كراهية ما كراهية فقهها كل قتين كسور جدا مندوب كما وكراهة التحريم حرام بو يقاني المركا قاعدة سي بريا مجرين كدي بيسوي سنتي مركا لي أكره وحن نعيا معناها أحرم وحن حرام تنمين هي أعوذ بالله وبك وأيوه وحرام إن ترادو إلهي بان مغان قلي يا عديقا وتنشيقي نيو وولو ما استعمالي هذا ننسى إلهي بان مغان قلي كليجي هذا بهتنا عيشتنا إلهي بان مغان قلي إلهي كدبنا أدانكم مغان قلي عدا ثلاثة هاي وكو بدبادين يايو وحبوكو قبان كراء ويجوز وحبنا أن يقول إنه لهذا بالله إلهي بان مغان قلي ثم بك أي أعوذ بالله ثم بك أو ثم ذو محيفة يدينسا ترتيب كلا دنبين يا تراخي كلا فوقان إلهي آدمون ودي شغيسكم الله قال وحور إبراهيم النخعي ويقول وحورنا يا لولا الله ثم فلان ولا تقولوا هورننا لولا الله وفلان إرجع وحوريي ابن أبي الدنيا كتاب كسر كتاب الصمت أي كوريي هل قضبوا عيناش شيئين باشرة مركنوا دارتك ورميني وعنو كبودني النبي صلى الله عليه وسلم وحكى السجن نين عربي ويمي أو وحويد ويديي صلاة التوحيد كصلاة الصوم كوحويدي انت وحنا قدر ما وحنا كدب ما يقول مركو سيس عليه وحوري افلح وابيه ان صدق افلح والي بني وابيه بان قدرتي ابيه ان صدق دور شيغو واي مالين كلنا نبا وحو ويدي رسولك عليه الصلاه والسلام اي الصدقه افضل يتنا نبي وحو عليه الصلاه والسلام اما وابيك لتنبؤنه إلى waxaan ku dhaartay aabahay waa lagu warami culimadu labada xadiis
nebigii oo aabba ku dhaaranaya ishkaal weyn bay noqotay jawaabo badan bay ka keeneen jawaabaha qaar waa daciif laakiin laba jawaabood baa ugu xoog badan jawaabta koowaad waxa weeye hadalkan dhaarba loogama jeedee waa hadal carabku la qabsaday oo markuu nebigu leeyahay waa abiihi carabkaaba iska odhanaya mooyaane wuxuu dhaar uga jeedo oo qasad dhaareed ma laha adoo marmar dhacdaa wallaahina keen billaahina keen adugu haddii lagu mar intoo dhaaranaysa maxaad oranaysaa waar ma baan dhaarane ya wallaahi waa sidaa unba kugu qufulan mooyaane dhaartu qalbiga maba soo marin sidaa waa lagu macnay laakiin nebi ilaahay oo diin jidaynayo oo ummadi daba joogto oo la eeganayo in la yidhaahdo waa hadal carabkiisa ku soo dhacay udheeda dacfi baa ku jira tasaxdii waxa weeye inta aan la xaaraantinimayn ayay qisadani ahayd waa la nasakhay markii dambe nebigu waa diiday isna ma isticmaalin alimaamu almawardi iyo keyrkii ayaa sidaa u taxqiijiye waxay leeyihiin labada xadiisba waa qabla taxriim intaan la mamnuucin jawaabta sadiidka ee toosan ee bilaa hadalkiina waa taa weeye fiihi masaa'il baabkan masalooyin baa ku sugan aluula tafsiiru aayat albaqrati fi landaad oo fasiray xabru lumma tarjumaan alqur'aan cabdullahi bni mascuudi cabdullahi bni cabbaas athaaniya ana saxaabata saxaabadu yufasiruuna waxay fasiraan alaayata aayadda annaazilata ku soo degtay fii shirki alakbari biannaha tacumu alasqar waa qaacido saxaabadiiyo salafkii ay lahaayeen aayaddu iyadoo shirkigii weynaa ka warramaysa ka yarna waa loo adeegsanaya waayo magacaa la isticmaalaya laba shirki weeye litanfiir si dadka looga eriyo marar badan aayaad gaalo ku soo arooray muuminiintaa loo adeegsanaya maxaa yeelay muuminku inuu dhaqanka gaalada ka cararo waa u dawo isagii dhaqanka gaaladu hadday soo dhex galaan waxaa dhacaysa inay isku soo dhowaadaan hadday isku soo dhowaadaanna inay israadeeyaan hadday israadeeyaanna inay isku masiir noqdaan oo aakhira meel lagu wada shubo ayaa dhici karta marka haddii aayadaha lagugu isticmaalo gaalada maaha in lagu leeyahy gaal baati macnaheedu waxa weeye ka carar calaamadaha gaalada oo ha yeelanin athaalisa ana alxalifa dhaarta bikayr illaahi alla lagu dhaarta keyrkii shirkun ilaahay cid aan ahayn in lagu dhaarta waa shirki alraabicatu taafraad annahu idaa xalafa hadduu ku dhaarto bikayr illaahi ilaahay cid aan ahayn oo saadiqan uu run sheegayo fa huwa akbaru isagaa ka weyn min alyamiin alghamuus alghamuus waa dhaarta ghamuuska la idhaaye aynu sheegnay inay tahay dhaar beenaale ama xoolaa ku dhaaranayo ama yuu ku dhaaranayo alkhaamisa alfarqu faraqa u dhexeeya bayna alwaawi wa uma fi lafdi wowga iyo uma xagga macaanida way kala fog yihiin oo waxa xeel dheer uma tartiib iyo taraakhi bay faa'iidaynaysa baabu maa jaa fi man lam yaqnac bilxalfi billaah baabkana wuxuu u baabiyey maa jaa wixii ku yimi min alwaciidi ee hanjabaada fii man ciddii lam yaqnac aan ku qancin bilxalfi billaah inta ilaahay loogu dhaartay waayo qofka muuminkaa ilaahay waa weynaynaya qalbigiisu alle waa ku weeyey hadda maxaa dhacaya kol haddii allaba la soo hadal qaaday oo qofkani dhaartay inuu ku qanco iimaankaa faraya hadduu qanci waayana waxbaa jira wixii jirna waa isla eegi doonaa can cabdillaahi bni cumara radi allahu canhuma ana rasuul llahi sal ly slam qaala waxa uu yidhi laa taxlifuu biaabaa'ikum xadiiskaan idiin sheegay waa kan waa sulx alxudaybiya ahayd cumar oo dhaaran uu soo gaadho wuxuu ku yidhi laa taxlifuu ha ku dhaaranina biaabaa'ikum aabayaashii man xalafaka ku dhaarta billaahi ilaahay falyasduq run ha sheego kol haddaad ilaahay ku dhaaranayso oo magac ilaahay gaadhayso been iska ilaali run sheeg waayo isma qabanayso ilaahayna waan sheegayaa beenna waan sheegayaa waa jariimo weyn weyn kol haddaad dhaaratay magaca ilaahay ku dhaaranayso run ka sheeg waman xulifa ka loo dhaarto lahu isaga billaahi ilaahay loogu dhaartaana falyarda raalliha ku ahaado waman lam yarda ka aan raalli ku noqonnaa falaysa min allah ilaahay xaggiisa waxba kama aha laysa min allaahi fii shay xagga ilaahay waxba yahay wey kol hadduu alla ku qanci waayey waxba yahay wey rawaahu ibnu maaja bisanadin xasan weynaynta ilaahay la weynaynayaa waxba kaaga xumaan maayaan nabiyullaahi ciisa ayaa waxaa laga wariyaa sida bukhaarigu ku keenaya saxiixiisa wuxuu arkay gabadh xadday wax suri saraqti say tiri wallaahi aladii laa ilaaha illaa huwa maa saraqtu gabadh buu ku yidhi naa waxbaad xadday
waanu arkayna xaday waxay tiri ilaaha aan ilaah kale jirin baan ku dhaartay ma xadin dawarkii wuxuu aamantu billaah wa kadabtu ayni ilaahi baa rumiyay allah ku dhaaratay ishaydaan beenta u tiriyay ishaydu labada ha qaldanto saa kuugu fiican waa sida adoo magaca ilaahi ixtiraamaya haddii waxaan meesha yaalla aanay wax weyn ahayn waxa laga yaabaa inaad tiraahdo ilaahay baan rumeeyey magaca allah weyneeyey waa ku kaas iska tag laakiin culimada islaamku waxay leeyihiin waayo axaadiista haddii daahirkeeda la qaato dee baloorkeeraad ku jirtay buu ku dhaaran doonaa odhan doonaa baloorkaasaan ku dhaaranaya dee dalkaasuu kaa marin doonaa si aanay taa soo dhicin axkaamtiisa waa la furfuraa waxay yidhahdeen waa 5 xaalo ninka dhaaranaya ee ilaahay kugu dhaartay mar taclamu kadibahu waxaad ogtahay inuu been sheegayo kaa lama dhegaysanaayo wax laga soo qaadanay male waayo waad ogtahay inuu beenaalay saxaabigii ashcas ibnu qays nin munaafiqay ceel isku qabteen nabi wuxuu yidhi barkhaatiya ma haystaa may buu yidhi isaga dhaaranaya waa munaafiq buu yidhi yaa rasuul allahi oo iska dhaaranaya kan waa munaafiq oo iska dhaaranayaaye iga daa dhaarta nabi wuxuu yidhi kol haddaad wax kala haynin ya waxa weeyaan waa la dhaarinaya haddii markaa qofka beentiisa la ogyahay laga dhegaysan maaye waa la busheeya marka haddaad ogtahay inuu been leeyahay beenaa leeyahay lama qaadanayo xaaladda labaadna waa maxay idaa tarajaxa kadibuhu beentiisaa xoog badan boqolkiiba 75 waxaad leedahay ninkaas been buu sheegayaa ma hubtid boqolkiiba boqol ma hubtid taasoo kale waajib kuguma aha inaad rumayso waad odhan kartaa wariya waan kaa shakiyey soo caddee inaad tanaasushood ilaahay weynayso oo dhaarta aad xurmaysaana way kuu furan tahay maadaama aan yaqiin labadii dhinac midna lagu haynin soo laba xalama haysaan marna taclamu sidqahu runtiisaad og tahay markaa runtiina waad og tahay ilaahayna uu ku dhaartay waajib sandullay kugu tahay inaad rumayso haddaad rumayn weydood raaci weydana falaysa min allaahi fii shay xagga ilaahay waxba kama tihid waa taasna waa ta saddexaad ta afraad waa maxay maa tarajaxa sidqu waxa kula rajaxan inuu run sheegaayo boqolkiiba 70 dhowr iyo 30 xasleede run buu sheegayaa shakina uu kugu yar jiraa kol hadduu alla gaadhay 25 ka hadhay intaa yar fraction ka yar ilaahay uga hadh iska rumayso maxaa soo hadhay mustawi tarafayn waa 50-50 ood kala garan laade ninkan dhaartay ma run buu sheegayaa ma been buu sheegayaa taana adigaa lagaa rabaa intaad baaritaan samayso kolba kii xoogaystaa inaad raacdo 5 xaalo ayay leedahay laakiin xadiisku wuxuu ku socdaa in ilaahay magaciisa la weyneeyo ubadka lagu tarbiyeeyo talabadu ay xoojiyaan bal waxay gaadhaan culimada islaamku waalidku isagoo ilmaha karbaashaya ama macallinku ulaynayo hadduu yidhahdo ilaahay baan kugu dhaariyey inaad wada break noqoto tiraahdo khalaas ilmihii muxuu bartay ya in ilaahay qalbigaaga ku weeyey isagana qalbigiisu ku weynaanaya laakiin wuxuu ku odhanayaa maalin walba iga hoos gelaya maalin walba ha hoos galo kol hadduu helay ku ogaadeen aad la weynaynayso isagana qalbigiisa alla ku weynaan doonaa tarbiya weyn baad kaga tegaysaa iyo faa'iido la yaab leh marka hadduu allaba soo qaado udha ilaahay baan kuu dhaariyey khalaas halkaa kaga hadh waxay culimmadu ka hadlaan oo kale qodob ah muxuu qofku ku dhaaran karaa qofku 2 shay unbuu ku dhaaran karaa yaqiin wuu ku dhaaran karaa wuxuu hubo boqolkiiba boqol danni qaalibana wuu ku dhaaran karaa danni qaaliba wuxuu isleeyahay boqolkiiba 70-80 waa sax sidii ninkii nabigu sallallahu alayhi wasallam uu siiyey kolayga timirta ah ee uu kafaaradaada ku gud muxuu ninkii yidhi wallaahi maa bayna laabatayha ahlu beytin afqara min beyti ilaahay baan ku dhaartay labada buurood ee madiina hareeraha ka xiga reer iga faqiirsanay kuma noola miyuu soo tirakoobay ma guriguri buu galay waa maya laakiin muxuu isleeyahay cid ka faqiirsan ma jirto dannigu ku dhaaranaya kuma dhaaranay xaqiiqada oo guriguri muu gaadhin laakiin muxuu isleeyahay adiguna waa la mid iftiinaad ka aragtay daaqada wallaahi way soo baxday cadcadi hal ku dhaaratay dannigan maskaxdaada ku jira dambi maad gelin laakiin waa laga fiican yahay waayo adoo hubin karaya oo intuu daaqada saa tiraahdo eegi karaa inaad ilaahay magaciisa ku keento mala keliya oo wax laga fiican yahay laakiin xaaraan kuma jirtid maxaad xaaraan ku jirtaa waxaan humaagiisaba lahayn
labadaasi oo yamiinu qamuuso meel daran bay kugu tuurayaan fiihi baabkan waxa ku sugan masaa'il baa ku sugan al-uulaa ta koobaad annahyu waxa la diiday can ilxalifi in lagu dhaarto bilaabaa aabbayaasha iyo xerada iyo maxaa la idhahdaa waxyaalaha noocaasa waxa la mid ah iyo geela yagay waa tii oo dacasna loo rogaayo waa tii kan ya waxaasoo dhani sax maaha waxa la mid ah dhaartan dastuuriga u yaqaanaan dhaartii dastuuriga aad kusoo dhowey odhanaya waxay idin leedahay dhaartii ilaahay kusoo dhowow tan dastuurkaa keenay ilaahay ma keenin waxay u jabinayaan wallaahi iyo kitaabkan iyo waxaan la soo lugooy waayo waa dastuuri baa bay leeyihinoo dastuurkaa ma amraya laakiin inay noqoto dhaar shareeco oo axkaamtii shareecada wadataa taasaa la qaadanaya la ixtiraamaya athaaniyatu talabaad alamru waxaa la amray lilmaxluufi lahu kii loo dhaaranayey bilaahi alla loogu dhaaranayey an yardaa inuu raalli noqdo kol haddii alla lagugu dhaartay raalli noqo athaalisatu ta saddexaad waciidu waxa loo hanjabay waciidu hanjabaadda loo hanjabay man cid loo hanjabay lam yarda raalli noqon weyda cidda ilaahay saluugtaa ee raalli noqon weyda waciid baa ku soo arooray waciidkaasna waa halis in la isilaaliya fiican ilahi waxaynu weydiisanaa cilmi naafic camal saalixa allahuma rabbana aatina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار